waabaa ninii xaaskiisa oo la oran jiray qarad quule waxay la degnaayeen gabadha reerkooda. maalin maalmaha ka mid ah ayuu ninkii wuxuu dhaan u kaxeeyey ceel aad u fog si uu biyo ugu soo dhaamiyo. ceelka markuu yimid wuxuu ugu yimid nin ceelka joogay oo dhar qurux badan xiran. kadib waa la iswareystay, nin walba wuxuu sheegay halkuu ka yimid iyo meesha uu degan yahay. ninkii ceelka loogu yimid ayaa yidhi war aynu legdanno, keeni la legda ayaa biyaha inuu wada dhaaminaya, haddii kale ceelka biyo ka dhaansan maysid. ninka intuu la yaabay talada ninka soo jeedshay ayuu ugu dambeyntii ka yeelay. wuxuuna ugu jawaabay haddii legdan kaa hayso maanta waxaad ka heshaad leedahay. ninkii fikradda soo jeediyey wuxuu ahaa qorismaris bahal ah. qorig intuu ismariyey ayuu bahal noqday, isla markiiba legday oo cunay ninkii geesiga ahaa hilibkiisii. wuxuu isku ekeysiiyey ninkuu cunay muuqaalkiisii. dharkiisii intuu gashaday ayuu oorkii intuu dhaanshay u kaxeeyey meeshii uu ninkii cunay reerkiisa degnaa. waqti dambe oo fiid ah ayuu isku soo aadiyey si aan loo garan. markuu yimid wuxuu dadkii ku yidhi war anigu waan daalanahay ee dhaanka ila fura. dadkii reerka oo ay qaraad ku jirta ayaa soo baxay oo dhaankii la furay. kadib qaraad oo cunto fiican ninkeedii u sii karisay reer qurxoonna u sii dhigtay ayaa gurigii geysay oo tiri adiga iska naso, anaga ayaa dhaanka furayno. na ardoo dab inooga keen dariska dhaxan baa ii haysa ayuu qorismaraskii ka codsaday qaraad. intay gabadhu dabkii ku maqnayd ayuu cuntadii bannaanka ku daadiyey. ileen waa waraabo bahal ah oo aan cunin cuntada caadiga ah. qaraad wiil wax kama dareemin oo waxay u malaysaa ninkeedii. subaxdii markii waagii bariyey ayuu u tagay qaraad aabbaheed wuxuuna ka codsaday inuu u ogolaado in xaaskiisa ula guuro reerkiisa uusan muddo arag. qaraad aabbaheed wuu ka yeelay arrintaas. waxaana gabadha aqalkeedii iyo dhiibaad baa loogu raray oor weyn oo la odhan jiray bacadle. sidaa baana lagu ambabixiyey dardaaran iyo ducoba loogu sugootiyey. cabbaar markay socdeen ayaa ninkii qaraad ku yidhi war anigu weli waxaa ugu jira daalkii dhaanka ee artigan fuulayaaye igu wad. waa hagaag ee fuul oorka waxay intaa u raacisay war ma carruur baad tahay miyaada xishoonaynin, waa maxay oorka isaar. ninkii qorigii ayuu ismariyey wuxuuna noqday waraawo dadow wuxuuna bilaabay inuu cuno oorka kuriskiisii. oorkii ayaa cabaaday markii kuriska laga qaniinaba. qaraad waxay la yaabtay waxa ratida ka cabaadinaya. waxay weydiisay su'aasha ah bacadlow biyo qaboobay maxaa ku helay. shabaxda jijmahaaga ayuu ratida diidayaaye iska bixi buu qorismaraskii ugu jawaabay qaraad. isla markiiba waxay iska siibtay jijimihii kadibna oorkii ayay sii horqaaday. cabbaar markii la socday ayaa haddana mar labaad oorka kuriska ka qaniinay. qaraadna sidii oo kale ayay weydiisay oorkii bacadlow biyo qaboobay maxaa ku helay. jaqafta kabahaaga iyo oorka diidayaaye ee iska bixi ayuu ugu jawaabay waraabihii. qaraad kabihii ayay haddana iska bixisay. wax yar markii la socdane haddana mar saddexaad ayuu qaniinay. oorkii ayaa sidii u cabaaday. gabadhii iyadoo aad u yaaban ayay haddana weydiisay bacadlow biyo qaboobay maxaa ku helay. hurufta maryahaaga iyo oorka diidayaaye ee iska fur maryaha ayuu qorismaraskii ku yidhi qaraad. qaraad waxay u qaadan weysay in ninkeeda ku yidhaahdo marada iska fur oo isqaabi. arrintaas qaraad way diiday waxayna ku tiri iyadoo shakisan war waan daala ee soo deg, aniga ayaa oorka markayga fuulayaaye kaale adiga igu wad. waayahay kabadda hoosteedii marnaha fiirin ayuu ku yidhi. qaraad intii oorkii fuushay ayay ku tiri waayahay oorka igu wad. qaraad ayadoo yaaban ayay kabadda hoosteeda si degan u fiirisay waxa meesha ku qarsan. waxayna aragtay dhaawacii ku yaalay ratiga kuriskiisa oo duleelay.
qaraad waxay ogaatay inuusan ninka ahayn ninkeedii ee uu yahay bahal cunay ninkeedii oo dharkiisa soo gashtay. qaraad talla ayaa ka caddaatay, waxayna isla markiina ka fikirtay siday ugu badbaadi lahayd bahalkaas cunay ninkeedii haddana cuni oorkii ay jecleed ee bacadle. qaraad waxay ahayd qof garaad badan, waxayna ka tashatay siday ugu badbaadi lahayd. xabaar markii arrintaa ka baaran degtay ayaa waxay ku tiri, warberi aan ari la joogay baan geedkaas bardaha ah hoostiisa alaab ku ilaaway, bal inamarsii aan ka fiiriye inay weli taalo. waa hagaag ee dhaqso, safar baanu nahay, waqti hanaga luminin. wuxuuna ratiga joojiyey geedka hoostiisa. qaraad waxay horay u qaadatay gumba subag ka buuxa ratiga saarnaa, waxayna la fuushay geedka.